بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ولا ليال سود هذا برنامجكي aan isku xusuusanaynay sidaan uga faa'iideysan lahayn bishan barakeysan Ramadaan xalqadan ka horeysay waxaan ku soo qaadanay qayb kamida fiqh siyaam ama ahkaam siyaam oo ahayd mufatiraat siyaam soomka waxyaabaha buriya ama qofka ka jabiya laba qaybood baan soo hormarinay aan soo tilmaanay qaybta hore waxay ahayd aljimaac galmada isu galmoodan labada qof ee isqaba iyo tan labaad ahayd inzaalul mani qofka in uu mani iska keeno sababta yani qofka inuu mani iska keeno soonka ay u jabinayso waxay tahay xadiis qudsigii waa kii Allah subhanahu wa ta'ala u lahaa يعني قفك صوما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي قفك صوما cuntadiisi iyo cabidiisi iyo shahwadiisiiba aniga darteedii buu uga tagayaa marka haddii shahwadii inuu iska daayo ahayd uu isagu iska keenay oo uu doontay hadde markaas waxa weeyaan soonkii halkaas uu ku jabay uu ku dambaabay isaga toobana laga rabaa inuu soo celiyo maalintaasina soo qadayo laga rabaa yani midka saddexaad buriya يعني muxuu الناقض الثالث ama يعني midka saddexaad burinay isagana soonka waxa weeyaan al-akl wash-shurb cunto in la cuno ama cabid in wax la cabo ama la cuno oo afka laga cabo ma garatay marka afka عن طريق الفم أو الأنف afka ama sanka oo markaasi ay gaaraan joofkii ama calooshii ay gaaraan maxaa yeelay cuntada oo la cuno oo la cabo waa midkii laga soomay way waxa weeyaan asiyaamu an almufattiraat cuntadii cabidiya kamida marka in wax marka yani waxna la cunin aan waxna la cabin inta aad sooman tahay laakiin hadaad wax cunto oo aad cabto markaas waxay noqonaysaa in soonkaagi uu markaasi uu yani buray maxaa yeelay ilaahay wuxuu noo tilmaamay habeenkii kaliya in wax la cuni karo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajr yani cuna oo caba ilaa yani mugdiga habeenkii uu kaga cadaado iftiinka waa beriga ay kala cadaadano waagu idin bariyo fajarka marka la gaaro inta laga gaaro cuna oo caba markii fajarka la gaaro thumma atimmu siyaama ila al-layl markaas soonkiina dhamaystira oo sii wada ilaa maalintii joojiya cunada iyo cabidi marka cunada iyo cabida oo qofku ula kac u cuno ama ula kac u cabo waxay burinaysaa soonkii ay ka burinaysaa ama soonkii baa ka jabay laakiin hadduu halmaan u cuno ama u cabo waxa weeye qofkaasi yani waxa weeye soonkii ka jabi maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii cuno ama caba naasiyan falyutimma sawmah qofkii cunto cuna ama caba isagoo helmaansan soonkiisa ha dhamaystiro laakiin muxuu ahaa yani ilaahay baa cunto siiyey aan waraabiyey inama atcamahu allahu wasaqah midka afaraad ee isagana burinaya waxyaabaha buriya soonka waxaa ka mid ah ma bimacna alakli washurb wax cunno la mid ah laakiin aan cunno ahayn sida maalan irbadahan laisku mudo مثلا glucose-ka qofka xididka laga siiyo muxuu ahaa yani waxyaabo مثلا uu kaga deeqtoomi karo cuntada sida glucose-ka iyo wixii lamid marka galay jirkiisa dariiqa xididkana ay u maraay taasoo laftarkeedu bimacna al-akli wash-shurb bay ka dhigan tahay haday sidaa tahay soonkii qofka waa ka jabaya oo soonkiisa sax ma aha laakiin haday irbada lagu muday daawooyin kale ay tahay daawooyin kale oo u baahna oo aan ahayn mid cunto uu kaga kaaftoomi karo oo ma cunto u dhiganta aan ahayn qofkaasi markaasi yani waxba dhimala soonkiisu waa sax oo soonkiisu waa u jiraa way marka yani qaybtan waxaan ku sheegnay laba shay oo ah al-akl wash-shurb waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo wixii lamid ah yani wax la cabo wax la cuno oo looga maarmi karo cunto iyo cabid sida irbadaha yani faleebooyinka markaasi qofku ku socda uu kaga maarmo cuntada oo kale hadii lagu mudo ay ku socdaan qofkaasina soonkiisii
waa uu jabay oo soona uma jiro wey maalinkaasi inuu soo qalleeyo weeye marka qaybtan intaas ayaan ku joojinaynaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh